يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله على نعمائه والشكر له على توفيقه وامتنانه، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وبعد. إخواني في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. walaalayaal khudbadeenna waxay ku saabsan tahay al-akhbaar xawla almar'ati almuslima, gabadha muslimada ah iyo khataraha ku xeeran fi daakhili wa fi lkhaarij, hadday tahay gudaheenna iyo haddii ay tahay dabadaba, haddii ay tahay dhibaatada dhinaca diinta iyo dhibaatada adduunyada labadaba. waxaynu dumarka uga hadlaynaa waxyaabo badan daraaddood. marka hore nebigu wuxuu xusay calayhi salaatu wasalaam fitnada ugu badan uu ragga kaga tegay inay tahay dumarka, marka si xun loola dhaqmo ama iyagu ay si xun u dhaqmaan, maaha markay si wanaagsan u dhaqmayaan. way ku fitnoobi karaan oo diintooda kaga xumaan karta buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam. waa xadiidkii bukhaari iyo muslim ku sugnaa. marka ay ruuxa dumarka ahay shareecada ka baydho, waxaa laga yaabaa inay sawir shaydaan yeelato, siduu nebigu xusay calayhi salaatu wasalaam. gabadhu waxay kula soo qaabilaysaa suuro shaydaan, muuqaal shaydaanna way la sii jeedsanaysaa buu nebigu leeyahy. markay ama isudgoonayso ama isjejabinayso ama isqaawiso, shaydaanku uu ku soo gabanaya. waa qofkii oo si xun u dhaqmaya. caaisha allaha ka raali noqdo waa xaaskii nebiga. waxay aragtay wakhtiyadii dambe iyadoo dhaqankii dumarku isbedelay oo aanay sidii hore ahayn, ku dhaqankii shareecada ay ku dhaqmayeen. waxay tihi low adraka rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam axdatha annisaa lamanacahunna min almasaajid kamaa municahun nisaau bani israa'iil, kamaa munica almasjid min nisaa'i bani israa'iil. hadduu ogaan lahaa nebigu waxyaabaha gadaal ay dumarku keeneen ama dhaqankooda iminka aan wanaagsanayn, masaajidada uu ka joojin lahaa, sidii dumarkii reer banu israa'iilba looga joojiyay bay leedahay caaisha, allaha ka raali noqdo. waxay aragtay qaarkood oo aan xijaabkooda wanaagsanayn, qaarkooda udgoon soo marsanaya. waa casrigii ama dee qarniyadii fadliga badnaa bay sidaa leedahay caaisha, allaha ka raali noqdo. waxaynu ogsoonnahay maanta fitanku u badani in uu ku yimi ama ka imanayo dumarka, taasoo aynaan isu sheegi karayn, waxyaabo aynaan macnaha mooganayn baan leeyahay, wax badan oo dhacaya. tusaalayaashana aynu soo qaadan doono. waxaynu odhan karnaa khataraha dumarka ku imanaya ee u baahan inaynu kala dadaalno hablaheenna iyo hooyooyinkeen iyo walaalaheen, iyaguna u baahan in lagu baraarujiyo inay iska ilaaliyaan. waxaa ka mida kuwooda daakhilka ama gudaheenna caadooyinka taxanaha inoo soo ahaa ee qabaa'ilka iyo deegaamadu ay leeyihiin, oo qaar badan oo ka mid ah dulmi uu ku jiro. sharcigeennuna caadada markuu ka hadlayo caado sharciga khilaafsan, ilaahay waa wuxuu ku canaantu ku ceebeeyey carab iyo dhaqankoodii xumaa. waidaa qiila lahum ittabicuu maa anzala allah qaaluu bal natabicu maa alfaynaa calayhi aabaa'ana awalow kaana aabaa'uhum laa yacqiluuna shay-an walaa yahtaduun. marka la waaniye carabtee la yidhaahdo xumaanta iska daaya, waxay odhan jireen waa dhaqankii aabbayaashayo, isagaanu raacaynaa, isagaa noo diina. ilaahay isagoo canaananaya wuxuu hi aabbayaashood miyay raacayaan haddaanay caqlina lahayn, cilmina lahayn? caqli ay xumaanta kaga joogsadaan yeelan waaye, cilmi ay ku hanuunaanna ma hayaanoo may raacin. sidaa daraaddeed caadadu marka ay khilaafsan tahay shareecada, qadaasad ma leh, waa munkar, waa la yska dhigaa, dhinacaasaa loo dhigaa. waxyaabahaas dulmiga ah dumarka ay ku hayeen carabtu lagana yaabo innagana inuu nagu soo noqnoqdo waxaa ka mid a xuquuqdooda iyadoo loo diido.
وأنت هذا وهذا ليس سورة النساء ودحلكي ومهركي ووحي لقى أما هذي إن بدن بقرآن كأي حديثك أي كورها معنا رنتاس محو كورنين لها الروح الدمر كأقف كي أهل كيدها أما أودي كيدها مركوسين ويا حقيدي دحلكي وكقل حج على عبه أي هذا ما مدنا تنهير كلا جورستين حولها أنت اللي قاعد أما مهر كذي مركو بطه مهر كي لها وآتوا النساء صدقاتهن نحلة أمر بيقول هاي بحيور دحلك مهر كودا سيا بالي يسقى عضية لها وسيو قرطية مركو كواب خيلا محو كرين لها وحكم إذا يدو تحجير لو سمع يروح حدو مركاه قور كده مرك قار كود قوراني دونين بالغو قصبا ستوسا أما ستدبن mararka qaarkoodna qofkii gayaanka ahaa ee kufkeeda ahaa ee jeclaatay baa loo diidaa waxaynu naqaanaa dumaasho kale dhaqankii carabta liitay buu ahaa innagana waa inagu soo noqnoqdaan in qofkii lagu qasbo haddii ay diidana qofka lagu qasbayo waxa markaa la isku dayan caruurta laga qaado xalkeedii iyo meherkeedana aan la siin way dhacdaa ilaa hadda waa jirtaa reerkii bay ka dhax baxday xagay ku socotaa maxay wax naga doonaysaa dhibaatooyinka badan haystay ka mid tahay dumarka mararka qaarkoodna qof gayaana oo diin iyo dadnimaba ku wanaagsan oo ay calmatayda loo diidaya guurkiisa la oranayaa kan xoolana ma haysto reerahaynu iskuursan jirnayna maaha waa kuwii la quursan jiray waxaynu aragnaa ka sii dhib badan ilaa yawmina hada inuu soconayo hablihii yaryara inta hooyooyinkii la doonayay inay u naxariistaan intay soo qabtaan xubinkooda taranka ay rifayaan oo weli fircoonigii sidii u soconayo waxa labaad mushkiladaha haysta kamida alcaadaat alwaafida kuwaas caadooyinkii gudaheena ahaayeen hablihii iyo cidii ku ag xirnayd intay la raadiyaan ilbaxnimo caadooyin shisheeye in la soo qaato la moodo waxaan inuu ilbaxnimo yahay markaasaynu arkaynaa mushkiladda ka jirta dharka oo marka daayartii aragta sidee u labisan yihiin aad iyo aad bay u falxunta wax lala yaabo weey dhar cawradii banaynaya dhar la isku dhajinayo dhar lagu dayanayo shisheeye qaar filime matala iyo qaar riwaayada ay ka arkeen waxaa ka mid ah qaladka galay zawaajkii iyo guurkii oo dadkii ay iska guursanayaan gaaladii siba habla dabadda joogaha u badnaadeen oo la odhanaya kanaaba dee kanaaba ka mid a qoladii aynu martida u hayn kanaaba xoolo badan haysta kanaaba laga xadhig xidhan karaa waa la eegaynin shareecadu maxay ka tii waxaa ka mid ah xafladihii guurka oo loo qabsanaya nidaamkii kaniisadda waxaa ka mid ah dawooyin iyagana la isleeyahay malaha kuwan haddii la marsado waaba lagu ilbaxayaa horumar baa lagu samaynayaa oo subagii doofaarku uu ku jiro qaarna la isku caddaynayo waxaa saddexaad oo mashaakilka iyo khatarta ku xeeran ka mid ah wasaa'ilu litisaal alxadiida qalabka lagu wada xidhiidho laga yaabo waalidkiinu inaydaan wax badan in badan oo ka midii ka warhayninoo khatar aada u badan leh internetka iyo daayartu waxay kala kulmayaan ceeb oo dhan iyo balaayo oo dhan xambaarsan oo qofkii isagoo kula jooga ummado kale la nool yahay waxaa ka mid ah telefisiyoonkii moobaylkan arrimahaas oo dhan waxay u baahan yihiin ubadkii in lagala warhayo oo laga wacyigeliyo oo haddii aan laga joojin karayn qalbigiisa iyo caadifadiisa iyo dareenkiisa diinta loo soo jeediyo si loo qanciyo oo uu kula jaan qaadi karo mashaakilka dumarka ku xiran waxaa ka mid ah waxaan la yidhaha maadada oo shayuhuna aada iyo aad ay ugu dadaalaan inay kusoo jiitaan waa xoolaha in lagu abuuro inantii xoolo jacayl markaa siday xoolo u doonayso ayaa waxay keenaysaa inay sharafteedii iibsato oo shabakadaha dadka xunxun ay ku dhacdo oo mid la sheekaysanaya xoolihiisa iyadoo u xilanaysa oo ama ka sinaysta ama dilaba oo sidaa ku mustaafiriya ama kooxaha maafiyada uu ku daro markaa koliyadii baa raadsanayso damac uu ku jiraa marna baahideedaa laga faa'iidaysanayaa labada arrimoodba khatartooday leeyihin waxaa ka mid a maa yusamaa bidaabuuri alkhaamis dad innaga inaga mid ah oo fitnaysan oo qofkii uu isleeyahay malaa waa ehelkii iyo asxaabtii iyo ummaddaad la noolaydoo shisheeye u adeegayo inantiisaa ku lugoynaya oo adiga arkayoo waynu isjecel lahay aan isa sawirn oo inantii musawir ka qaadaya qaawan baraha bulshada waxyaabaha u badanay daayartu ka qaylinayaan wey sawiradaa qaawan markuu ka qaadana wuxuu leeyahay ama waxaan doonaad ii fulinaysaa ama facebookaa soo dhigaya way waalanaysaa gebigeeduba
waayo haddii halkaa uu soo dhigana u daran haddii waxa uu ka doonaya ay yeeshana u daran waa daayartii dadka inkaarta qaba ee shaydaanka u adeegaya gacanta ugu dhacay weeye waa ducaatun calaa abwaabi jahannam siduu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam waa shayaadiin albaabada naarta taagan oo dadka naarta ugu baaqaya walaa yaxlifunna in aradnaa ila alxusna markay warramayaanna waxay leeyiin qofkan aqoon baanu u korrinaynaa wuu ku ilbaxayaa waddan baanu geynaynaa wax ugu soo kordhayaan waa dhoofinaynaa arrimaha khatarta ku haya waxaa ka mid ah almushaarakaat fi alfacaaliyaat walxuduuri waltamhiil arrinta siyaasadda iyo dhaqdhaqaaqyada la xidhiidha in dhaqaalo la soo saaro hadday tahay dowlada iyo haddii ay tahay sharkadaba oo ruuxii dumarka ahaa waxay moodaysaa inay wax soo korodhay tacab iyo dhibaatana way ku jirtaa in wax u kordhayna way moodaysa ama ay horumar gaadhay keligeed bay wufuud la socotaa waalid lama socdo ninkeedii lama socdo qariib bay ku tahay markaasaa shirarkoodii ay soo fadhiisanaysa ragga ajaanibta ay la socoto shisheeyaha ay dhex boodayso waxaa loo isticmaalayaa mararka qaarkood taswiiqa waxaa la idhaah suuqgelinta marka inantii waxay noqonaysaa quruxdeedii baa lagu soo xelunaya iyo da-yaraanteedii iyo dharka ay gashan tahay dabeetana waxaa la leeyahay sharkadu ama hay-addan wax iibinaysaa suuqgelinteedaad qayb ka tahay counterkii xagga hore fadhiiso adiga hala ku daawado hadalla dadka qalbigooda ku dhacaya oo nooca iyo noocaasa baad odhanaysaa saasaa dadka loo soo jiitaa dadka had iyo jeer caqliyadoodu ay liitaan ama shaydaanku uu duufsadayba iyada daraaddeedu imanayo meelahay ku fitnoobi kartay ka mid in laga dhigo ruuxii dumarka ahayd ee qaaliga ahayd ee qasnada qiimaha badan inoo ahayd ee boqoradda uu islaamku ka dhigay badeecad yar oo wax walba lagu xayeysiiyey ilaa taayirka iyo saabuunta waa nasiib darro ihaanada iyo dullaynta iyo karaamo darradaasaa lagu sameeyadiina waxay u haysataa ama ehelkeedii u haystaan inuu wax u kordhay qofkii waxaa ka mid a secretariatka waxaan la idhaahdo khataraha ku xeeran dumarka ama xokaynta in ajinabiga inay xokayn u noqoto wakhti dheer wada qaadanayaan isla gooni noqonayaan xaalado badani soo marayaan wakhtigoodiina dheeraanayo karaamo darra inay ku jirto waynu dareemi karaynaa qofka khayuurka ah ee inantiisaa u naxayaana halkaa u shaqo geyn maayo waxaa dhacda ijraa'u lxiwaaraat waxaan la idhaahdo in dumarkii loo soo diyaariyo oo lagu dhiirogeliyo doodaha inay ka qayb galaan dabeetana ay jahli iska dhex gasho waxyaabo gaalnimo ah iyadii la caayo la ysku xanaaqo buuqu bato waxaa ka mid a mushaarakaadka axsaabta ama in dumarkii la idhaahdo dee haddaad kursigii hore ugu soo boodaysaa xisbigii aynu arkayna ruuxii dumarka ahaa oo ka soo booday aqalkeedii iyo odaygii iyo ubadkii ka timidoo ama waalidkii ka soo carartay oo marada lulaysa ama madax qaawan oo meel boodaysa waxaa ka mid a musaabaqaadka jamaalka ama tartamadii quruxda oo la odhanayo dee waxaan ilaahay uu ku siiyaha qarinino marada ha ku hagoogine bal adna ka faa'iidayso ummaddana uga faa'iiday adduunna ku helo bannaanka u soo bax oo dabeetana la leeyahay waa adduunkaa sidaa yeela waa caalami caalamka shaqooyinkiisay ka mid waxaasoo dhan waxa sii raaco iyaduna runtii dadka qaarkood u gabada ibticaaf ila alkhaarij in inantii la diro la idhaahdo meel dabadeed bay wax ka soo baranaysa waalid lama socdo walaalna lama socdo saygeediina lama socdo keligeed ay meel mudhmudh leedahay intay adkaysan kartaa waa inan daayar wax cunaysa waxaa ku xeeran dhallinyaro waxaa laga yaabaaba gaala inay wax la dhiganayso sanad 2 3 4 hadday sadkayso dhaqankeedii iyo diinteedu waa qalloocsamay ama uu dhintay adaana u sababa waxaasoo dhami waxa weeyaan waxyaabo qur-aanka iyo xadiidkuba ay diidayaan oo ehelkeenna iyo ubadkeenna iyo hablaheenna karaamo darro ku ah iyo innagaba hooyooyinka aynu doonayna inay soo baxaan ee qiimaha badana ubad inoo soo saara aayale runtii kuwa kama soo baxayaan ama way ku adag tahay ciduu ilaahay hanuuniye way jirtaa laakiin waa khataro aad iyo aad u dhib badan oo aynu ka digayno ay tahayna in qofka muslimka ah uu eego qofkani markuu wax qabanaya ama wax baranaya ama shaqaysanaya muxuu sharcigu u ogol yahay shareecadeenu maxay ogoshay maxaase ka xaraama maxaa qofka mustaqbalkiisii baabiin kara maxay diintu diiday arrin qaladana weeye
mar walba wixii ummadaha shisheeye gaalada inaan isku dhaqanka ahayn aynu kala diinta nahay waxay sameeyaan in laga daydo nasiib darooyinka ka mid oo la yiraahdo waxaas waa caalami waxa caalamka sameeya wadankaas oo ilbaxayba saas u sameeya waa meelaha ummaddu ay ka leexatay ka halaagsanto inay daliishadaan dad inaan isku diinahayn marka midkaas aynu aad u baraarujinaynaa waalidkuna inuu anteenooyinka taago oo indhaha ula baxa weeyo oo eego dee ubadkiisan aayihiisa ku abtirsanay u soo ducaynaya maxay ku horumari karaan maxay ku halaagsamayaan allahumma arina alhaqqa haqqan warzuqna ittibaa'a وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المستضعفين في سبيلك في كل مكان يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه